magaalada muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa waxaa maalintii labaad ka soconaya shirka wada tashiga qaran ee Soomaaliya. shirka uu gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa ka qayb galaya hogaamiyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Puntland, Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. qodobada looga hadlayo shirka ayaa waxa ugu waaweyn dardargelinta doorashooyinka lagu howlan yahay in dhawaan ay ka dhacaan gabi ahaanba Soomaaliya iyo in la iska xog wareysto wixii ka qabsoomay heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 27 bishii hore ee May sanadkan oo ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka qaran ee soo aadan iyo sidoo kale khilaafaadka dawladda dhexe iyo maamulka Jubbaland ee ku aadan arrimaha gobolka Gado. shirkan oo aan la shaacin muddada uu soconayo ayaa lagu wadaa in ay ka soo baxaan go'aano loo dhan yahay oo horseed u noqon kara xasilooni siyaasadeed oo ka dhaqan gashay geyiga Soomaaliya iyo in ay qabsoomaan doorashooyin qaran oo lagu wada qanacsan yahay sida ay u dhacayaan. shacbiga Soomaaliyeed iyo saaxiibada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirarka wada tashiga qaran oo ididiilo gelinaya dadweynaha oo ay daashadeen khilaafaadyo siyaasadeed oo muddo dheer soo noqonayay. wixii ka soo kordha shirka iyo arrimaha la xiriira waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena dambe haddii ay baydmo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan fadlan saar subscribe dabadeedna taabo dawanka ku lamaansan si aad ula socotid macluumaad muhiim ah oo aan si joogto ah kuugu soo gudbin doono. waanad ku mahadsantihiin la socoshada wararkeena.